الله u naxariistay waxaa salaadii janaasada isbitaalka Yaardameeli ee magaalada Muqdisho lagula dukaday meydka ugaas Xasan ugaas Khaliif ugaas Rooble oo ahaa ugaaska guud ee beesha Xawaadle. Ugaas Xasan ayaa maalmo ka hor magaalada Muqdisho ugu geeriyooday xanuun dhanka wadnaha ah oo la soo dirsay sida ay xaqiijiyeen ehelada marxuumka. Salaada janaasada kadib waxaa ugaaska loo qaaday magaalada Beledweyne iyadoo halkaasi loogu gudbin doono deegaanka Halgan. Cabdulqaadir barnaamij oo ah afhayeenka guddiga qabanqaabada aaska ugaas Xasan ayaa ka sheekayay taariikhda ugaaska. inna lillahi wa inna ilayhi raaji'uun waxaan isbitaalka Yaardameeli uga qayb qaadanaynaa janaasadii ugaas Xasan ugaas Khaliif ugaas Rooble oo ku geeriyooday magaalada Muqdisho loona qaadayo magaalada Beledweyne si loogu aaso tuulada degmada Halgan oo boqoradii iyo ugaasyadii lagu aasi jiray. Ugaaska waxa uu ku dhashay Qansax oo tuulada Halgan ama degmada Halgan u jirto ilaa dhowr 10 kiiloomitir. waxa uu ku barbaaray degmada Buulaburde iyo Muqdisho. ugaaska waxbarashadiisa wuxuu ku qaatay Muqdisho isagoo bartay xisaabaadka. waxa uu ka soo shaqeeyay meelo fara badan oo dalka ah. wuxuu ka soo shaqeeyay maareey ka soo noqday dekadii Berbera, dekada gobolka Sanaag. wuxuu ka soo shaqeeyay dekada Boosaaso, dekada Muqdisho oo madax ka soo wada noqday. ugaaska wuxuu ku jiraa dadkii xilligii dawladdii dhexe ay jirtay aadka u yaqiinay xisaabaadka iyo qaasatan canshuuraha. ugaaska waxa uu ka soo shaqeeyay oo door weyn ka soo qaatay shirkii Carte ee lagu qabtay dalka Djibouti oo dawladda Soomaaliyeed lagu yeegleelay 2000. waxa uu ugaasku ugaasnimada qabtay 2016 bishii 7 oo loo caleema saaray. waxaanu ka dhaxlay walaalkiis oo ka horeeyay ugaas Cabdiraxmaan ugaas Khaliif ugaas Rooble. waxa ugaasku intii ugaaska ahaa uu qabtay howlo badan. waxa ugu muhiimsan nabadeynta uu ka shaqeeyay dadka isla degan gobolka iyo dadka deriska la ahba in nabadeynteeda uu ka shaqeeyo. mas'uuliyiin kala duwan oo qaarkood xilal sare ka soo qabtay dawladihii hore ayaa dhankooda ka tacsiyeeyay geerida ugaas Xasan ugaas Khaliif. inaan tacsi halkan uga dirno ugaasyada Soomaaliyeed ugu waaweynaa ka mid ah deegaanka Hiiraan ka soo jeeday ugaas Xasan ugaas Khaliif oo ugaasku runtii nin bulsho ahaa, nin maaragtay ummadda Soomaaliyeed meel joogtaba ay isku siman yihiin. aniga gaar ahaan waxaan jecelahay inaan tacsida aan maanta halkan ka dirayno inaan u diro tii aniga gaar ahaaneed iyo tii qoyskayga. waxaan ku dari lahaa iyadoo uu fog yahay maanta kale waa maalmihii ay maaragtay ismadu isku maaragtay tacsiidin jireen isinka beesha reerka ah oo fog oo Sanaag jira Suldaan Saciid Suldaan Cabdisalaam oo ay saaxiib dhowna hayeen. suldaankana gaar ahaan qoys ahaan iyo reer ahaanba reer Sanaag nin ka tirsan buu ahaa. inaan tacsi halkan uga dirno ugaasyada Soomaaliyeed ugu waaweynaa ka mid ah deegaanka Hiiraan ka soo jeeday ugaas Xasan ugaas Khaliif oo ugaasku runtii nin bulsho ahaa, nin maaragtay ummadda Soomaaliyeed meel joogtaba ay isku siman yihiin. aniga gaar ahaan waxaan jecelahay inaan tacsida aan maanta halkan ka dirayno inaan u diro tii aniga gaar ahaaneed iyo tii qoyskayga. waxaan ku dari lahaa iyadoo uu fog yahay maanta kale waa maalmihii ay maaragtay ismadu isku maaragtay tacsiidin jireen isinka beesha reerka ah oo fog oo Sanaag jira Suldaan Saciid Suldaan Cabdisalaam oo ay saaxiib dhowna hayeen. suldaankana gaar ahaan qoys ahaan iyo reer ahaanba reer Sanaag nin ka tirsan buu ahaa. u diraynaa eheladii uu ka geeriyooday ugaas Xasan ugaas Khaliif ugaas Rooble oo runtii ugaas qaali ah ku ahay ummadda Soomaaliyeed ee ku geeriyooday magaalada Muqdisho. waxaan alxamdulillah ilaahay uga baryaynaa jannadii firdawsi inuu ilaahay ka waraabiyo. ugaaska wuxuu ahay ugaas qaali ah sida saaxiibadii hore u sheegeen. ugu dambeyn waxaa la qaaday meydka ugaas Xasan ugaas Khaliif ugaas Rooble ugaas Warfaa
oo markaasi loo gelbinayo magaalada Beledweyne ee xarunta gobolka Hiiraan iyadoo oo markaasi haatan laga qaadayo ama laga dhoofinayo garoonka Aadan Cadde ee magaalada Muqdisho waxaa la geyn doonaa qabuuraha ugaasyada oo ku yaala deegaanka Halgan oo gobolka Hiiraan ka tirsan iyadoo markaasi ay ku yaalaan halkaas sida la sheegay qabuuraha ugaasyada si loogu aaso oo dhaqankan uu yahay in qabuuraha ugaasyada oo ku yaala deegaanka Halgan lagu aaso Isxaaq Rashiid Maxamuud 5TV Muqdisho abka Dahab Plus iyo casriyeynta adeegyada shirkadda Dahab Shell Dahab Plus oo kuu fududeynaya isla markaasina kuu koobaya dhammaan baahiyaha adeeg ee eDahab Dahabbay iyo adeegyada shirkadda Somtel markasta iyo mar kastaba ku isticmaal applicationka Dahab Plus